mudanayaal marwooyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah 1 arrimaha amniga 2 arrimaha doorashooyinka 3 horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada 4 cadaaladda iyo garsoorka 5 dawlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa 6 dib u eegista dastuurka 7 dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro 8 iskaashiga caalamiga ah gabagabadii guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad siisaan codkiina kalsoonida hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo mudanayaal iyo marwooyin waxa iga go'an inaan soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tarjumaysa baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeena Soomaaliya marxaladan uu dalku ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hanaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay hadduu alla idmo kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiina insha Allah waad mahadsantihiin gacanta taaga hal dejiyo yaa diidan waxa aan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta uga mahadcelinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkuga hor imid iguna siisaan codkiina kalsoonida waxa kale ka mahadcelinayaa soo dhaweyntii iyo taageeradii ay isiiyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan mudanayaal iyo marwooyin sida aan hore idin sheegay waxa iga go'an in aan soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tarjumaysa marxaladda aan ku jirno iyo baahida dalka meel marisana hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah hadduu allidmo heshiisna lagu wada yahay mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan rajaynayaa in aad siin doontaan xukuumadda aan soo dhisi doono iyo barnaamijkeeda codka kalsoonida marka aan idin hor keeno si ay u gutaan waajibaadka baaxadda leh ee hor yaalla hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo waad mahadsantihiin